هو الحب يا هو الحب يا الله في داخل خير خلق الله برشديسا وواجب جعل كيسا وواجب يعني دينتيسا يوحو نو شيغي او لا قاتا وواجب sidaas wuxuu inoogu noqonayaa inuu yahay qof aanu ka jeclaanayno nafteena sidaan hore idinkuugu soo sheegay ilaahay jalla wa ala waan ka jeclahay nafteyda nabigeena muhammad sallallahu alayhi wasallamna waan ka jeclahay nafteyda hadana saameynin hadana arinkaas sameynin iimaan dhab ah ma haysti rumaynta aan rumaynaya ilaah iyo nabi sallallahu alayhi wasallamna waa ka been sheegay maxaa yeelay nabi sallallahu alayhi wasallam xadiithu wuxuu ku leeyahay waa in aan naftaada ka jeclaataa ilaahay jalla wa ala iyo nabigiisa sidaas darteed marka dhalinyaroy waan ogsoonahay waxaan jecelnahay in aan ku dayana ciyaartooy qof heesa qof basketball ciyaara qof business adduunkan ganacsi weyn ka gaaray gaal ha ahaado ama muslim ahaado laakiin arinkaasi waxa ka horeeya ku dayashada aad ku dayanaysa nabigeena muhammad sallallahu alayhi wasallam بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أحبابي في الله كسو دواذا حلقة ذيني سدحاد برنامج كيني أها BKD صدق سنتي ولا ليال إلهي جل وعلا هيدن حفظي ميرو بعدونك كجوكتان بيشان بركي سنة رمضان ويسعوتا أو ما أركتهي ويسعونيسا sidaas darteed waxa laga doonayaa qofka dhalinyarada ah oo muslimka ah inuu si fiican uga faa'iideysto sidaas darteed waxaan la jecelaystay walaalahayga inaan u soo bandhigo barnaamij kaas oo aan ugu magac daray BKD oo ah baro ku dhaqan diintaada xalqadeenan saddexaad waxaan ku soo qaadanaynaa walaalayaal barashada ama fahanka ama jeclaanta aan jeclaanayno ama aan ku dayanayno nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam na'am walaalyaal sida dugsoontihiin jacaylka ama ku dayashada nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ama rumaynta nabiga sallallahu alayhi wasallam waa waajib waxayna waajib ku tahay qof walba oo muslim ah qof walba oo rumaysan kalimatu la ilaha illa allah qof walba qaatay diintan islaamka waa in uu raaca jeclaada ku dayda nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam sidee lagu ogaanayaa qofka muslimka ah ee jecel ama ku dayda ama aaminsan nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam culamaa rabbaaniyiin waxay inoo sheegaan walaalayaal qofka rumaysan nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa in uu yani tasdiiquhu fima akhbar waa in aanu rumaynaa oo aan ka run sheegnaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo soo dirshiyay wuxuu inoo soo gudbiyay waa inaan ku ateecnaa wuxuuna amraya waa in aanu ka harna wuxuu naga reebay inaan ilaahay jalla wa ala ku caabudna nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay wuxuu ina faray wuxuu ina amray oo kaliya ilaahay jalla wa ala kuma caabudi karno wax walba aanu doonayno sida rabna aan doonayno waa inaan u caabudna ilaahay jalla wa ala sidoo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay inugu amray ina faray markaas ayaad jeceshahay nabigaada markaas ayaad rumaysan tahay nabigaada markaas ayaad ku dayanaysaa nabigaada sida dugsoon tahay noloshani waa maalmo yar sida idiin soo sheegay qofka bilaadanka ah muslimka ah waxa loo baahan yahay mar walba inuu su'aal isweydiiyo adduunkan yaa abuuray dhulkan yaa abuuray cirkan yaa abuuray hadaa dhinto maxaa dhacayo intee ku dambeyn doona su'aalahaas inuu qofka isla xisaabtamo markuu asoo adduunkan joogo waxay u fududaanaysaa inuu ogaado adduunkan inuusan kaliis iska imaanin su'aalahan waxa u soo qaadanaya waxay tahay ma aha inaa ku shaki geliya ma ahan inaa ma aragtay adiga su'aalo yani inaa iska ka weydiiyo aan raba bal waxaa jiro dhalinyarada ku nool qurbahani maanta waxaa la weydiiyaa su'aalahaas maalin walba
dhulkaan yaa abuuray cirkaan yaa abuuray diin ma jirto wax dhan ha aaminin iyo wixii la mid ah iyo wixii la mid ah sidaas darteed barashada diinteena islaamka ah waa waajib waxayna waajib ku tahay qof walba oo muslim ah qof walba oo rumaysan كلمة لا إله إلا الله قفل بوق قاتي دين تان إسلامك نعم ولا ليال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا نحن في رينينا سيدو الله جل وعلا قرآن كيسي وقت المامي وقو شرفي وقو ويني سيدو أقصنتهين رمينت إلهي جل وعلا وحي كحر انت رمينت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رمينت النبي صلى الله عليه وسلم وحي كحر انت رمينت إلهي جل وعلا سيدا سيدرت إلهي جل وعلا وعليه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلهي جل وعلا وعليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلهي جل وعلا وعليه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلهي جل وعلا وحو إنو شيغيا قفكي النبي صلى الله عليه وسلم راعى كديدا سندي سقاطا جعلادا كسليا مرولبه إن أبا المرنتي سنقون دونت جنة نبينا صلى الله عليه وسلم حديثها وحو كل يهي حديث كاسا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحو ليه النبي صلى الله عليه وسلم وما ديدا ودن جنة أي قليا إلا من أبى قفكي ديدا ما أهنا مركز الصحابة رضوان الله عليهم مركز ويديا مركز وحكول هذا يا رسول الله قالوا ومن يأبى يا رسول الله يا وينتك ديديا حوير قال من أطاعني قفكي أني أطيع دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قفكي أني أطيع جنة sidaas darteed walaalayaal bishaan barakaysan ee ramadaanka ah waxay ku noqonaysaa waa madrasa waa school aad ka baranayso diinteena islaamka aad ka baranayso wuxuu ilaahay jalla wa ala ku farayo aad ka baranayso wuxuu ilaahay jalla wa ala ka reebayo aad ka baranayso wax walba oo diintaani ay ku farayso oo waajib kugu ah sidaas darteed ayaan waxa u soo qaadanaynaa mar walba waxa waajib ku ah qof walba oo muslim ah inuu bartaa ama gabar walba ama qof walba muslimad ah inay barataa لأجل ذلك ولا ليال وحان إذن كلتا لنها برشاد دينتين إسلامك إن أنو كددالنا إن أنو كهر مرسينا وحوال بأو علمي وحوال بأو أدون وحوال بأو لبرتا لأجل ذلك ولا ليال قفك آنا برانين كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أما دينتان إسلامك آنو برانين أونا كدخمين أونا جعلانين قفك سيمحوك نوليهي قفك سيمحوك نوليهي ولا ليال لأجل ذلك إلهي جل وعلا وحينو شيء فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام دينتان إسلام كولا ليال شيء شمع هاني وبرشو برو دينت هذا كدقن وبرنامج كيني أها بي كي دي نعم ولا ليال أدي أدى أمهسنتهين ما دام أدي سرع ذين إلا آنو كسفري سنة شهد دينتين إسلام كأه وواجب وحين واجب كتها قف والباء مسلم قف والباء رميسا كلمة لا إله إلا الله قف والباء قاتي دين تان إسلام قف كي نبي أطيع وحوير النبي صلى الله عليه وسلم جنة أيو قليا نبي نحد كسونتهن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا نجعلانيني مركز رسول كاس أو جنة دن أي ما أركتي راعتان كيسة أي جعل كيسة أي ما أركتي كده يشديسة أي جنة إنه جهر استكسنتاي محايا لي ولا ليال قفك النبي صلى الله عليه وسلم راعين قفك النبي صلى الله عليه وسلم جعلانين جنة ما أركيو جنة ما قليو ما تمركب لأن يرادوا محيس ميان مركب أرنتان برنامج كان أيا وحانو جعلستي ودكسونتهن أنيجا لأن يرد آد أيان وفكرة ضدك المسلمين تآد أيان وفكرة صارت وفكرة وحي تحي وحانو كجرنا وقت في تن وقت في تن تلقوا جرنا قفك مؤمنك وحلاقي دونيا إنه إلهي جل وعلا أعراب إنه إلهي جل وعلا ويديستا إنه ودد توصنكو هدية مالي والبوان تكنا مركز تكنن إلهي جل وعلا وحاول يديسنا اهدنا الصراط المستقيم ودد سيتوصن علمي جيدا هدانو برانين سيدو الله جل وعلا نوغتو سنيا سيدو الله جل وعلا إنوغ أقبل يا عباداتكينا محايلي وإذن سوشيغي حلقة دي هوري إن إلهي جل وعلا علم لوعابده إن إلهي جل وعلا إخلاص لوعابده هذا العلم لهي هذا الإخلاص ما معنى الإخلاص هذا القرنين ما معنى الانقياد هذا القرنين ما معنى يعني الصدق إلهي جل وعلا لا إله لا يرشي هذا القرنين محاك كل رقم يسهدين هذا سيدي درت أي برنامج
barnaamijkan ugu magac daray baro ku dhaqan diintaada. waxaad garanaysaan in ilaahay jalla wacala uuna abuuray kaftana nooga tegin. sidaas darteeda waxaan rabaa dhalinyarada ku nool dibadahani waswaas badan baa ku socdo, khuraafaad baa ku socdo, waxaa ku socdo yani jacayl adoon ka fogaansho diin ayaa ku socoto. laakiin waxaan kula talin lahaa dhalinyaradaasi inay fahmaan ana allaha subxaanahu watacaala khalaqanaa warazaqanaa walam yatruknaa hamala. waa waajib inuu qofka intaasi fahmaa inuu ilaahay jalla wacala na abuuray, inuu ilaahay jalla wacala na irzaaqo, ciyaarna nooga tegin. bal arsala ilayna rasuulan, rasuulkaa ka hadleyno oo xalaqadeena aan ku soo qaadanay maanta ayaa waxaa ka mid ah bal arsala ilayna rasuulan, rasuul ayuu inoo soo diray. faman ataacahu qofkii ateeca dakhala aljanna waman casaahu qofkii caasiyaane dakhala annaar, naarta ayuu gelayaa. marka naar iyo janno adiga ayaa go-aankeeda leh. amaa waad wadada saxsanaa qaadanaysaa oo ilaahay ku jiri waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur. sidaasi darteed walaalayaal diinteena islaamka barasho ayay u baahan tahay. saajli dalika ilaahi jalla wacala tusaale ayuu inoo soo guuriyey qur'aanka. wuxuu ku yidhi innaa arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan calaykum kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula facasaa fircawnu rasuul faakhadnaahu akhdan wabiila. maxaa ku dhacay fircawn? nebigiyuu caasiyey. ajli dalika diinteena islaamka walaalayaal wixii horay ahaa oo na soo dhaafay oo aanan ogeyn oo horay yani ka dhacay ayaa inooga waramaysaa. waxay inoo sheegaysaa waxa soo socda mustaqbalka. aayaddan waxay inoo tilmaamaysaa xadiidka nabi sal slam iyo aayaddaana inay iswaafaqsan yihiin. maxaa yeelay nabi sal slam wuxuu yidhi qofkii ani ateeca janno ayuu gelayaa, qofkii iga soo horjeesta naar ayuu gelayaa. haakada kaanuu kullu alanbiyaa. qofkii hal nebi oo nebiyada ilaahay jalla wacala uu soo diray ka mid ah ku caasiyaa oonan adeecin oonan rumaynin naarta ayuu gelayaa. sida aayaddan inoo sheegayso innaa arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan calaykum, waxaa idiin soo dirnay rasuul idinku markhaati kici doono, idinka ayuu markhaati idiin noqon doona. nabi sal lay slam markhaati ayuu inoo yahay. sidaas darteeda maalinta yowm alqiyaama wuxuu leeyahay nabi sala allahu calayhi wasalam ummatii ummatii ummatii. ilaahi jalla wacala qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaaa cala annaasi wayakuuna arasuulu calaykum shahiida. waa noqonaya mid shahiid ah, mid nagu markhaati kaco ummadan jalla wacala oo markhaati u noqdo. nabi sal alla alay wasalam qofkii raacana dakhala aljanna waman casaahu dakhala annaar. siduu ilaahay qur'aankiisa inoogu soo guuriyey uu yidhi innaa arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan calaykum kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula. walaalayaal nabi sal alla alay wasalam jacaylkiisa iyo raacitaankiisa iyo kudayadiisa faa'iidooyin fara badan ayay leeyihiin. waxaan ku soo koobayaa 2 faa'iido maadaama faa'iidooyinkiisa aad u fara badan yihiin oo nabi sallallahu alayhi wasallam raacitaankiisa jannana lagu galo, kaaritaankiisa oo lagu caasina naar lagu gado. muhiimadaas horta koow way tahay. 2 arinta kale ayaa waxay tahay walaalayaal qofka caaqilka ah oo ilaahay jalla wacala qur'aankiisa ku sheegay markuu ka soo hadlay janno, markuu ka soo hadlay naar, markuu ka soo hadlay tawxiidka, markuu ka soo hadlay shirka, markaas wuxuu ilaahay jalla wacala u leeyahay inna fi dhalika la dhikra liman kana له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا ليال لبدا فائدة يا إدين شيء يا وحيتهاي النبي صلى الله عليه وسلم جعل كيسة كديشديسة راعتان كيسة الدنيا ولو بدبادا أو حلقوها لا فرحت يا طمأنينة يا سكينة يا قناعة يا دجنان يا حسلوني أي الدنيا كان لقوها لا آخرنا وحلقوها لا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. إلهي جل وعلا ما ركتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث إنه وسو بوري أيها وحكمت مالت يوم القيامة ومدى أودن يعني وحي أتجيان يعني أما بن آدم كودن أما أمضه ودن وحي أتجيان نبي آدم بي أتجيان مركز وحي ليهن نبي آدم نو شفاع مركز وحي ليه يعني نبي إبراهيم أتجا نبي عيسى أتجا نبي محالدها موسى أتجا
إلا لقصه قارو نبينا محمد عليه أفضل السلام وأزكى التسنيم مركاسو وحوليه أنا لها وقرتيدي وأختيدي ومديدي أي إليه صلى الله عليه وسلم مركاسو إلهي جل وعلا أسجوديا مركاسو إلهي جل وعلا وحو تصبيح سنايا تصبيح بدن تحاميد بدن إبرية بدن مركاسا وحال ليها يا محمد مدح هذا كر أقاد ضلبه وحاد ربتيد مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه أمديسة أي أشفع قاضية آخرنا وكبت باديسة الدنيا وكبت باديسة فضلك جعيلك كوديشدا نبينا صلى الله عليه وسلم وواجب وحانا لقربا إن أرنكاسي لي ماذا قف والبا ومسلم وجزاكم الله خير